casriga maanta aan joogno wadamada caalamka dhinacyo badan ay ku tartamayaan haddaba wiil Soomaaliyeed ayaa yiri tartanka kama hareyno dalkeena muxuu kula tartansiinayaa dunida sheekadan ayaan idinku soo gudbin doonaa Cabdisalaan Xasan Nuur waa wiil dhalinyaro dalka wax ku bartay kuna nool magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa uu sameeyay noocyada kala duwan ee diyaaradaha casriga ah diyaaradahan uu sameeyay wadamada adduunka ugu quwadda weyn maanta way isugu faanaan haddii ay colaad dhacdana dhinac walba waxa laga yaabaa inuu isku difaaco diyaaradahan way duulaan sidoo kale waxa ku xiran kaamirooyin wax duwa iyadoo kaamirooyinkaasi ay ka saacidayaan inuu arko wax walba oo diyaaradda halis ku noqon karta waxaana uu kala soconayaa qalabka uu ka hagayo diyaaradda markay hawada ku jirto kaamiradan ku xiran muuqaalka inta ka sii daawanay hadda inta uga daawan inta ka daawanaa hadda inta hawada ku jirto markay soo degatana memory ay ugu jiro muuqaalada ay duubto dhan waa helaa hadda kaamiradan aniga iga dhax arkay aad waa kana waa isku jeedaa waxa uu sameeyay bandhig isagoo duulinaya diyaaradaha si ay bulshada iyo wadamada caalamka u arkaan wixii uu sameeyay Cabdisalaan Xasan Nuur ayaan weydiinay xilligii uu soo bilaabay xirfadan diyaarad sameynta iyo waqtigii ay ku qaadatay sameynta diyaaradahan ilaa yarhantii waa soo waday waxa ciyaalka ku ciyaaraan waa sameey jiray laakiin asla markaa dugsiga sare dhameynayay 2017 markaas si sax u soo bilaabay oo hadeertaan ilaa 5 sano oo dhameystiran howl kale ma lahayn inta jaamacad dhiganayay jaamacadeed waqtigii ka soo haro wax isku day wax sameyn bisleewada waxa uu sheegayaa diyaaradahan uu sameeyay magacyadooda noocyadooda iyo waxyaabaha loo isticmaali karo diyaaradaha aad sameeyo magacyada ana oo baxo waxa doona u bixinaya yani hal diyaarad waxa ugu magac daray asli cabaade oo ah maamadii Soomaaliyeed ee ahayd gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya ee Afrikaan ee noqotay duuliye ciidamada cirka Soomaaliyeed marka diyaarad kale waxa ugu magac daray saaxiibkay Guuleed Wiiliq oo soo caawiyay waqti cid kale inay caawinin ehel xataa Allah ka dhigay marka magaciisa u baxsada shaqooyinkii qabanayaan waxay tahay shaqada markaas anigu ku tala galo ay qabanayaan qaarkood delivery oo isticmaalaan qaarkood kaamirooyin ay ugu xiran muuqaala ku duuba marka hadii yaa ku xirtid qalab oo beeraha lagu buufiyo waa ku buufin kartaa quadcopters hadba marka danta ka leedahay dibdimis ata wala isticmaal karaa Cabdisalaan ayaa codsaday taageero iyo garab istaag maadaama la arkayo isku daygiisa dawladda Soomaaliya waxa ka codsan lahaa inay iga garab siiso yani wax aan iga garab siin karin ehelkayga iyo qabiilkaygaba oo ay iraadisid wax barasho yani heer sare ah ama ahaato mid nidaami ah ama mid oo informal nidaam ahayn taliyaha ciidanka cirka Soomaaliya General Maxmuud Sheekh Cali Dablabeelood ayaa wiilkan ku tilmaamay qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah soo saara diyaarado duula oo sambal ah isagoo sheegay inay tahay tilaabo weyn oo lagu farxo waxa uu codsaday in wiilkan ay dawladda garab gasho maadaama uu yahay qof dalka u soo baxaya waxaan ku faraxsanahay inuu maanta xafiiska igu yimid yar dhalinyaro ah Soomaali ah ee ku dadaalay inuu wax alifo waliba waxyaalihii ugu dhibka badnaa inuu alifo diyaaradan macmalka uu sameeyay waa duulina hawaday galay waa soo dejina kaamiro ku xiray waxbay duubeen waxay duubto waa la arkaa waxa soo dhan waa wax asagu gacantiisa ku sameeyay markaad weydiiso qaybaha ay diyaaradan ka kooban tahay oo diyaarad runtii qaybaha ka kooban tahay kulligood waa yaqaan korku ka bartay aniga markii hore la ii sheegay waxyaalaha qaar ma runsanin laakiin markuu ii yimid oo xafiiska iigu yimid waan arkay waan qalabkii fiiriyay uu kiciyay uu soo dejiyay
ودib badan kala kulmay waayo waqti dabaysha ay hadda xoog leedahay u jirtaa wixina waa wax yar oo qafiif marka controlkeeda xataa marka qaarkood ma celin kartida waa ka dhacaysa laakiin dadaal iyo fikir iyo aqoon iyo rabitaan ayaa ka muuqda meesha ninkan dhalinyarada iyo dadka la midka ah in gacan la siiyo haddii annaga ninkan aanu isu raadino meelo wax lagu barto oo wadamada aan saaxiibtanahay lala kaashado waxaan isleeyahay wax weyn buu keeni karaa wax weyn gaar ahaan dhinaca aviationka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa ama soo jeedinaya madaxda qaranka qaybaha kala duwan u soo jeedinaya in dhalinyarada saan oo kale ah cabdisalaan oo kale ah oo qaar kalena ay jiri karaan in gacan la siiyo cabdisalaan xasan nuurna waxaan leeyahay allah u barakeeyo kii meel ka gaaran allah ka dhigo laakiin qofsan waxaa awoodda xadidaysa marka in la kaalmeeyo la dhiirigeliyo la ogaado la arko lala sheekaysto wax la weydiiyo marka cid kale ciday gacan naga siin kartana aan la kaashano arintaas waa soo jeedin lahaa runtii waana ugu hambalyeynaya cabdisalaan hawshan uu qabtay way adag tahay in qof walba uu qabto xirfadan uu bartayna way adag tahay barashadeeda waxuu rajeynayaa in fariintiisa laga soo jawaabo abshir cabdullaahi amiin universal tv muqdisho